dalka Soomaaliya ayaa kaalinta 29aad waxa ay ka gashay liiska wadamada Afrika ugu wanaagsan ciidanka militariga. warbixin arintaasi ku saabsan waxa inoo diyaariyay Maxamed Ciise Maxamuud. dawladda Masar ayaa noqotay wadanka Afrika dhanka ciidanka marka loo eego ugu wanaagsan gaar ahaan kuwa militariga, waxaana ku xiga dalalka Algeria, Ethiopia, Nigeria iyo Koonfur Afrika oo iyaguna ka mid noqday dalalka dhanka ciidanka militariga ugu wanaagsan qaaradda Afrika. warbixin ay soo saartay hay'adda dunida u qaabilsan ogaanshaha awoodda ciidanka militariga ee GFP ama Global Firepower ayaa waxay ku sheegtay in dawladda Masar ay tahay dawladda Afrika ugu wanaagsan ciidanka militariga. waxyaabaha lagu qiimeeyay dawladda Masar oo ay ku gashay kaalinta koowaad ayaa ah in ciidamadeeda ay haystaan agab dhameystiran oo dhanka cirka, dhulka iyo badda ah. waxaa kaalinta labaad galay dalka Algeria iyadoo saddexaad ay gashay dawladda Ethiopia, waxaana dhammaan ciidamada dawladahaasi laga qiimeeyay qalabka ay haystaan, awoodahooda dhanka cirka, dhulka iyo badda intaba. dalkeena Soomaaliya waxa uu galay kaalinta 29aad waxaana kaliya ka dambeeya hal wadan oo ah Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. wadamada ayaa waxay u kala galeen kaalmaha sida tan: kaalinta koowaad waxaa gashay dawladda Masar, labaad Algeria, saddexaad Ethiopia, afraad Nigeria, shanaad Koonfur Afrika, Angola, Morocco, Sudan, Libya, Democratic Republic of Congo, Kenya, Tunisia, Zimbabwe, Zambia, Chad, Tanzania, Uganda, South Sudan, Ghana, Cameroon, Mozambique, Niger, Ivory Coast, Mali, Madagascar, Gabon, Republic of Congo, Namibia, Somalia iyo Central African Republic ama Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. marka adduunka loo eego wadanka ugu wanaagsan ciidanka militariga waxaa la sheegay inuu yahay dalka Mareykanka, waxaa ku xiga Ruushka, China, India iyo Ingiriiska. tani sanadkii 1945 dawladda Mareykanka waxa ay hogaaminaysaa wadanka ugu wanaagsan ciidanka militariga adduunka. Maxamed Ciise Maxamuud, Somali Cable TV, Muqdisho.